cudurdaar ma leedahay in loo cadaalad doonto, in dhaqaalo la siiyo. qof ganacsada ah oo miskiin ah oo suuxi u jirmaadaya inuu nolosha ilmihiisa soo raadsado ayaa tiri lacag ha bixinin oo ha siinin ururada argixisada hadday kusoo weydiiyaan, adiga oo aanan difaaci karin, ilaalin karin, oo damaanad qaadi karin amnigiisa, adiga oo keliya awooda inaad canshuur xaddaafa ka qaadatid ganacsatada, laakiin beddelkeeda aysan kaa heli karin wax kasta oo ay xaq u lahayn. qofka maxaa xal u ah marka? ma naftiisa inuu gooyo oo dowladdiina ay canshuurtii ka qaadato, kanna uu nafta dhaafiyo hadduu wax bixin waayo? maxaa xal u ah? nafta inuu badbaadsado. si uu naftiisa u badbaadsado wix xal u ah ayuu sameynayaa, ilaa inta dowladda aad adiga madaxweynaha u tahay xal la fahmi kara ay u kada bulshada. in guri laga kireeyo, in la qariyo ama la dhuumiyo isaga oo dhagar maleegaya. arrintan guriga la iska kireynayo madaxweyne, haddaad sidaad sheegaysaba aada u ogtihiin, dowladdaa laga rabay inay soo qabato kireystaha oo shabaabka ah iyo kireeyaha oo milkiilaha guriga ah ee wada shaqeynta ay ka dhexeyso. waxay ahayd shacabka inaad kasoo qabataan, banaanka keentaan, maxkamadaysaan, sharciga wuxuu ka qaba lagu fuliyo si shacabka ay u badbaadaan. haddaa ogtihiin ee aad ka aamusteen ee hadda aada warbaahinta ka sheegaysa, qaadi iyo qariye dowladdu ay og tahay, iyadina ay qayb ka tahay islatiin. shacabka masaakiinta ah ilaahay qaba. in la qariyo qof ka tirsan shabaab aaday u yar tahay shacabka dhexdiisa inay ka dhacdo, laakiin in qof shabaab ah la og yahay dad inuu gumaaday, dhibaato geystay, lasoo qaado xil loo dhiibo, laga dhiga madaxa amniyaadka ee gobolka banaadir, laga soo qaado haddana la dhaho ninkan ayaa ciidanka hogaamin doona. sidaan ognahay dowladda soomaaliya waxaa ka buuxa oo jabka ah xubno sarsare oo horey ururkaas uga tirsanaa. waxaa wax qarinaya ee sababta u noqonaya dhibaatada inaan xal laga gaarina dowladnimada xafiisyadeeda ku dhex jirtaa. meesha qasan ee shacabka laga dhibaateynayo, lagana soo duulantagayo xafiisyada dowladda waana iska cadda, shacabka waa ogyihiin, masaakiintan aan hadli karin. taasna aayaddii qur-aanka kariimkaa soo ma ahayn waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannam, oo xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wassalaam ma ahayn khawaarijtu waa kilaabu nnaar, oo xadiidkii kale ma ahayn qofkii qof. aayadan aada soo qaadatay mudan madaxweyne, maasha allah, culimadaa hortaada sheegtay hawshan fariintan ku saabsan wacdiga iyo xusuusinta dadka falka ay ururadan ka howlan yihiin inuu yahay wax aan diinta islaamka ah meelna kasoo gelin. culimada soomaaliyeeda ka hadashay, salaad kasta oo jimco ah oo khudbo ah waa lagu soo qaataa aayadan iyo aayado kale, axaadiista ah soo qaata waa lagu soo qaataa. arrintan ficilay rabtaa, hawshaasna culimaday u taala, culimada soomaaliyeeday u taala gudbinta fariintan diiniyanta ah ee waajibaadka naga saaran. adiga madaxweyne waxaa lagaa rabaa sidee loo soo ciribtiri karaa ama loo afjari karaa ururkan dadka dhibaateey. waa inaad xalkeeda keentid, waa inaad dardargelisid howlgalada. hadda waxaa sheegtay in la howlgeliyay ciidankii tirada badnaa, howl weyn la qabtay, wax laga bedelay amnigii, wax tallaaba oo arrintaas kasoo naasacad mar. gobolada soomaaliya hab tusaale usoo qaadat, ilaa hadda dagaalaa ka dhacaya, xalna lama hayo, guul ee dowladda soomaaliya ka gaartayna ma laha. miyaysan ahayn markii madaxweynaha soomaaliya muwaadin haddaan adiga ku weydiiyo uu xafiiska imaaday mudnaanta koowaad inuu siiyo amni, bedelka madaxweynaheena soomaaliyeed uu diyaaradda ku yiri, kusoo laabtay, raacay, degay, koray, fuulay, soo dhacay, haddana meeshii la rabay inuu dhaho balhooyi waddankan dhibuu ku jiraa, 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ilaa iyo 10 mudnaanteena dhan aan isugu geyno ammaanka. qof aan amnigiisii waddanka waxba ka hagaagsanayn, ya oo xitaa isaga oo ku jira filla soomaaliya sidaas ay ciidamada u hareer buuxaan la ilaalinayo oo naftiisa u baqaayo, oo xitaa marka almukarar markuu maraayo 50 cabdibile iyo 25 bullet proof iyo intaasoo daba jeex lagu galbinayo. number 4 inuu diblomaasiyadda raadiyo oo uu dhaho xiriirka caalamkan soo celinayo.
mudnaanta hooseyba lahayd wixii madaxweynaha uganda noo sheegaya kamid ahayd wuxuu yidhi dadkaan amni ma rabaan miya u dha walla wuu wareeray wuu fahmi waay amniyaa loo baahan yahay si dadkaa marka aanan loogu orkacsan masaakiinta ah oo maalin kasta inta loo soo fadhiisto aanan loo jilin hadal dabaxsan oo miskiinnimo ka muuqato. walaalayaalow dadka xilkan fadhiya ee madaxda ah shacabkan waa daaleen waa dhibtoodeen nasteexa haddaa rabtiin dadka amni waa ku filan tihiin waa qaban kartiin intaasoo kunoo ciidana maalin kasta lasoo tababaraaye dadkan waxay baahida u qabaan ha loo sameeyo amniga ha loo hagaajiyo war ha la geliyo ciidamada shaqo war ciidanka lacag fiican hala siiyo waa la arki doonaa isbedel degdega askari $100 la booda iyo $200 muxuu samayn karaa oo cunugiisi iskuul u rabo $50 waa iskuulkii ya dharka oo iskuulka lagu aado keliya $25 kaakiga marka la dooraa dugsiga hoose macalinka dugsiga qur-aanka wuxuu rabaa $26 marka u yarta askariga jekalaysadiisa waa u baahan yahay jaadka iyo waxa mostly waa qayla sigaarkii wixii fiiri xaasa u joogtaa dhammaantood ma aha laakiin qaar ya waxay rabtaa biilka guriga waxay rabtaa shoppingkeedii iyo make-upkeedii $200 siis ninkaas ma isdilaayo waa u goynaa qaraxa wuxuu leeyahay ha ku habsado sababtoo ah wuxuu og yahay wax u dhintinaysan lahayn laakiin markaa $5,000 tusaale dhex ka geliya askariga andhaw mudane labood adaa iskale laakiin kaalintaada aan dareemo wallahi naftu waad dhigaa wuu seexanaa aan ku dhahay weliba laami wuu seexanaa si uu amni u xaqiijiyo marka askariga xaqa uu leeyahay inuu u gambiyo markuu arko wax khatar ku ah ilmihiisu u naxa hadduu agoon noqdo 200 xitaa waa weynahay marka mudnaanta siiya waa awoodin madaxweyne in nin iska fadhiyo xildhibaan iska qabowgiis iskaga qaata inta aragto $1,000 adiga jab iskaga ridatid ya lacag intaasoo kun ka badan miskiinkii qoraxda taagnaa ee adiga ku ilaalinaya cadowga diyaar ku ahaan intaas qaato